Soomaaliya haddii ku soo duusho Somaliland sidii berigii hore ugu jabtay duulaankeedii si ka xun bay ugu jabi doontaa hadda la kale waxaan idinka mahadnaqayaa mowqifkii midaysnaa ee ka soo saarteen arrintii ictiraafka iyo amniga guud ee qarankaba sidii dhaqanka waxay walba Somaliland xukuumadda ee markaa talada joogta iyo xisbiyada qaranku si joogta bay uga tashanayeen arrimaha qaranka waxaan iska kaashanaynaa oo hawlaha qaranka oo ka mid yahay amnigu sidaynu dadkeena ugu heli lahayn amnigana oo ilaashan lahayn dalkeena horumar u heli lahaa soo ictiraafka aynu helay loo sii xoojin lahaa oo dunida inteeda kalena aynu ictiraafi lahayd warunoo ictiraafka waxaa laga yaabaa dee mar dunidu kuma wada ictiraafayso Somalilandna xaq bay u lahayd mar walba ictiraafka waayo dowlad madax bannaan bay noqotay 26 Juun 1960 maalinta aynu gobonimada qaadanay Muqdisho xor ma ahayn Soomaaliya ma jirin haddana mar waxay dhahan baarad country baan nahay horta ma inaga dhalay mise iyaga ila dhalay Somaliland baa dhashay Soomaaliya